بنقع ayaan hor fariis anigoo ina cumar doola oo BBC diga sheekayso oo la isku qabsado Muuse airport ka qabtay ayaan toban go'aso aan islaa oo dad taacado reerkiina ayaan hor fariis way khiyaameen waxay yiraahdeen inankii yaraayeedo adeerka u ahay meel adeerka ayde كايرون كاريبين وان قنعنينا كالو رقانو صحيح وان دبي مان كلا ويغا صحيح marka dabi kaas la igiliyay laakiin nin rag inuu dabin galay inuu dhaawacmo labadaba nolosha u sameeyay Axmedow isbiyaduna aniga iyaga ay baahan waan u sheegay talbisdan aniga iyaga ay baahan way dad baan wataa anigu hada ma garata baaxad baan wataa mar haday mar in la gideen wayna dhisayaan marka labaad ma hadda mar labaad inaad dub ugu noqoto war habar jacayl kama lahaban ana idinka aqaan aamusa Cusmaan Umar Doolo siyaasi ka tirsan xisbiga wadani isla markaana xilligan u sharaxan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda ayaa waraysi gaar ah u siiyay telefishinka Sahan wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo musharaxnimadiisa iyo halkay wax u marayaana وهرنسي waxa uu bogaadiyay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ku joogo dalka Qatar iyo sida uu arko safarkaasi horta Axmedow safaradii oo dhan waa mid ka muhiimsan aad buu muhiimad gaar ah wadankan yar ee Qatar waa wadan yar oo adduunka ka ciyaar door weyn siyaasadiisa door weyn buu ku leeyahay siyaasadda dhacaysa adduunka qadariyiintu iyo nimanka imaaraadka la دور وين بكليه waxa weeyaan ismaan lahayn inkasoo ka filayay isaga hadana shimbir buu laba dhagax ku wada dilaya oo jeebkana imaaraadku gelinaya jeebkana gad ayuu gelinaya ismaan lahayn waa challenge ba ka dhaxeeya ismaan lahayn imaaraadka halkii uu gaaray meel ka sii sareyso qadar gaari doona ismaan lahayn xaqiiqatan surprise bay ugu noqotay ninkan uu la kulmay waa family sidaad sheegtay waana nin ninkan ka goodo weeyaan waxa weeyaan marka inay meel sare la gaaray halka may fariisan cid fariisatay xasan sheekh baan fariisan in farmaajo fariisan halku fariistay in waxa weeyaan marka sidaad adigu fahamsantahay Axmedow يعني وحقوق ورئيسنا يوم بعطاه وحيد قلدني وحيد سحنا الدلكا عد كاغل حجال بدن ما جرتو marka waxaan sidee waa horumar iyo guul weyn oo guulihii intii ugu dambeysay la gaaray waxa weeyaan dhan walba hadii laga weeto tiraado cid waliba way cadow oo dadkooda dhan tira kaana ma ay kaana la hadli maayo goodoon bad gelaysa laakiin xarig walaal la xirayba oo lagu xiray inaad katiinad walba iska soo jabiso horta ayaa ninka raga ku waajiba laakiin hadda tiraado la hadli maayo kaasi ka farmaajo la hadlay xasan sheekh buu maalin salaamay waxa hadda tiraado dunidu waa laga qabsanaya ee duniduna calaacaliyo inaad guriga ku dhaxlaasho maahay waa inaad siyaasadda meel geysaa marka safarka gadar waa safar wax weyn ugu soo kordhin doona inagana furfuri doono wax badan oo inagu xidhnaa waxaan ku sheegay macna kalima dalku inuu dhawaan galay aqoonsi rasmi ah hadii uu gali waayeen inuu galay aqoonsi kulli markaad eegto politicalka adduunka ka jira iyo halkaynu ku naaliyo istiraatiijiyadda ku naalo لواي ما يقودين قصة هرشيدة تايوان بدل باك قصة هرشيدة وحي أباهن تاينا مشرت تايوان marka hadaynu ugu yaraano meeqaanka Taiwan waan ku ballan qaadayaa dadka waan sheegay inaan dhinaca kale waxa uu taabtay musharaxnimadiisa iyo halka ay marayso iyo odayaal uu sheegay in ay arrimihiisa soo farageliyeen anigu musharaxi baan ahay musharax dadkiisii haysta ayaana musharax weelkiisii haysta dadkiisii haysta ayaana waxa soo kordhay qalad dhacay oo aniga iga dhacay bini aadamkuna way ilduufaan dhacay qalad baa dhacay waxa weeyaan position aan kayga ahayn baan fariista arrinaanan u qalmin baan anigu naftayda ku sameeyay aad baan naftayda markii hore u raali gelinay dadkii taageersanaana waan raali gelinay waxaana leeyahay qaladku ninka uu ka dhacay hay ugu qabanina balay dulqaato qaladkaasi wuxuu ahaa
waddankeena dawaa dugta waxba kaa qarin maayo institutionna iska hoos dhisan kan dowladnimada inaynu ka adkaanaynu xafidno weli maynaan gaadhin insha allah laakiin waynu xafidi doonaa waxaynu laakiin ku jirnaa gacmo kale ayay arrimo badani ku jiraan oo ku soo xumaadaan dhexdooda arrimahaasina dad badanna dhaway dhaawacaan dad aan waxba ahayna waxbay ka soo dhigaan dad wax ahaana hoos bay u celiyaan marka anigoon faanayn waxaan isleeyahay dad badan oon u qalmin inay xildhibaan noqdaan ayaa noqda waxaana ka dhigay institutionada ay qaladadaa dhiceen kuu sheegayo reernimadu kow ka tahay reernimaduna waa basalo wadogta way sii kala baxdaa markaa basasha ugu hooseysa markay reernimadu sii kala baxday aan ahay niman ka mida maaha reerkoo dhan niman ka mida oo aan xitaa jifidii hoose jifa yaroo ugu hooseysa oo aan ku ogaa dalka in badan baan ka maqnay may lahayn dad siyaasiyiinoo waaweyn dad ganacsatooy waaweyn marku hadduu siyaasi noqdo waxaa laga yaabaa inuu munaafaqada barto hadduu lacag badan helana waxaa laga yaabaa inuu barto laakiin dadku markay iska xoolo dhaqatay dad dan yara yihiin daacadnimadaa ku dambaysa in badan dadan daacadnimadaa ku ogaa ayaa aniga ina yaroo isaguba xaqu le inuu issharaxo ayayna waan sharaxaya inamo badan oo faamiligayga ayayna waan sharaxaynaa inamo aada u badan waa tan laydhaa ardaagaasaa leh ardaagaa sii kala qaybsado sab kalaani sii kala noqda markaa sabka iyagii yaraa qayb ayay inamo badan ina waan sharaxaynaa inamada 90% markay arkeen inaan meeshii marayo ayda waa ninkaa weyn baa maanta maraye magacana inoo la garanayana xisbigana dhistay dadkana haysta taageerayaashana haysta aynu inankaasaana uga tanaasuli adigu inan baa ii tanaasuli waayey inanku xaq buu lahaa inuu tanaasuli waayey laakiin inanka waxay ahayd ciddana kala saaraysaa inay noqoto cid u qaranta labada iyadaba markaa niman jifada aan kuu sheegaya maaha reerkao dhan imakaba adigu colaado meelo badan aan ka soo urursada ayaa show niman kaa aan kuu sheegayo ayaa waxay sameeyeen ayaan ma soo ururiyeen u badan dadka aan ehelka u ahayn waxan marka way khiyaameen waxay yidhaahdeen inankii yaraa ee adeerka u ahay ama ilma adeerka ahaydee kaa yara waanu kaa reebayna waanu qancinaynaa kaaloo waraaqaanoo saxeex waan dabin baan gala way iga saxeexeen hayi baan idhi nimankaasi khamiistii ayay istoorteen khamiistii ayay axmedow istoorteen isniintiina waanu codaynayna dadkii bulshadii aan codka ka rabay degaankayga weliba sii ahayd hoose ardaagayga tale ulamay tegin umay yeedhin annagii sababtay nagu kala saarayaan may qodobaynin aqoon hadday noqoto waayo aragnimo hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto garasho hadday noqoto xirfad hadday noqoto namay qiimaynin adigu calaa kulli xaal nimankii inta meel la galeen ayuunbay yidhaahdeen intay waraaqa yidhahdeen waanu ku ridaynaa ayna waanu ku ridin xitaa inay saa u dhacayso automaticalka maan moodayn markaa adigu iyagii waxay yidhahdeen inankaasaan isku raacnay iyagoo 15koodii oo midna xaggaaga usoo leexan oo way usoo leexdeen shan baa usoo leexday tobanba xagga kala maray tobankaas ilaahay dartii umay marin way isogyiin telefoonadii bay wada xidheen munaafiqnimay sameeyeen ma garan waana laga dambeeyo nin suuqa jooga oo ilaahay ka xisaabin doona ayaa ka dambeeyo nimanka watay waanu isgaranayaa markuu isdhegaysto uu garanayaa markaa dabinkaasaa laygeliyey laakiin nin ragi inuu dabin galo iyo inuu dhaawacmo labadaba nolosha u samaysan axmedow haddii ay ku yidhaahdeen maxaa yeelay inankan aan u garanay inuu meesha yimaado maxaad u tanaasuli weyday hadday markii hore yiman laayeen ama ay arrinta soo ururin laayeen oo odhan laayeen inankaanu u garanay haddaanu kuu garanay bay igu yidhaahdeen inankaanu qancinayna ma garatay dadkiina lamay soo tashan dadkuna raalli kamay ahayn dad badan baa guri ku jooga dad badan oo magaalada jooga ayay guri ka jooga tegin ummadina reaction iyo feedback ay arrintii ka samaysay xildhibaanay soo canaantay siyaasiyiin bay canaanatay ana qaladka lahaa waan gishadii kugu qirtay waxay ugu leeyahay sabab aad u fadhiisataa mabay kugu oolinba imakana aana qubtay baa la dabadu waa la qabtaa xildhibaankii taagnaa axmedow
ayuun baan aho macal adiga aan ku ahay adigaagadii hor fadhiya oo Somaliland u ahay oo aan ardaagayga u ahay oo aan dadkan ka soo jeedo oo dhan hadda waa la kala baxayaa xiliyaa la fuulayaa xiliyaha igu daba xidhan oo dhan xildhibaan baan ahay way iskaranayaan meel kasta ka ceerigaaba jooga iyo ka meel kasta jooga Somaliland waanu ahay ninkii cod siinaya way gareero Cismaan Cumar Doolbaan wax badan ma ka tari karaa waxa jira ninkii aan wuxuu ku tusho maqaarka meel xun bay ka warsatay inaan dee raaco dambiile kuma ahayn oo dad badan baa raaco waa mabda'da iyo maxayday waxa arkaysay in qarankan uu meel sare gaarsiin karo wana tadila ma ku taagantay wallahi waa tan ku taagnay guri kula ma socon qabiyaalada ilaahay bay igu ginaan kula socon waxaan kula socday inuu yahay nin diblomaasi inuu yahay nin aamusan haddaan heli karayo diblomaasiyadiisa oo kale dunida dahabkan ay soo dhawaan siisan lahaa oo de inta shalay baaba igu filanba inaan diblomaasi ahayno toban bacsi ayaan hor fariis anigoo ina Cumar Doola oo BBC diga sheekayso oo la isku qabsado Muuse report ka qabtay ayaan toban bacso aan islaa waa dad taacado reerkiina ayaan hor fariis dhinaca kale waxa uu ka hadlay inay jiraan dad wax ka tabanaya isla markaana musharaxnimadiisu ay meel adag ku jirto oo qordofooyina way jireen waxaan iga soo maray iyo doorashooyinkii iyo dhibaatooyin badan oo dib bulshada in badan inta way ku taageeraysaa kuwa waad ka raali gelisay dad badan oo wax ka tirsanaya waan ka hor baan raali geliyay habar jeclaan maalin kelmad ku dhow waan raali geliyay weligeena habar jeclaan qabiil soo hadal qaada habar oo waxaan fooq bay ga sharadee soo helaan oo waxin kale habar jeclaan waxaan lahaa maanta ilmaade reeyaa heestii inantii insaarowbaad oo kale sidii markii dambe dhacday waa inaan maanta dhex noqdo وحقنا وحرتك أي كذي عروة صوت شلة وأنا شيء جري أنا كحس وأنا شيء جري وأقول ترى حبرت شعر مسوي عضي سيدي كانوا ويدين عضينا والله وحي يقدر نروحها لين عيد قالوا يقول حبرت شعر أنا كان وسان كل أدوار كذا أرك أدوار برات أو رشيدي صدق تاني مركب قلنا أن أي أبتياره بيجون يستوون بكم مقلة سان كل هم مقلة إنه ويرى على سين والله يصحيح والرب وحنكم على كلا تكان يطور بيجار بالسي كون السيرة هذا الكون بيقاته يجو السيرة يعرض قارة مركور السيرة يسمى لأنه نبرد ويساق بيه وذي وبرش على كتير مركي دمبنا حبرش على كلمة دي هو بيكهر واي مر هذي مر إن الجديد وين السيان مر هذا كمان مرة بعد مين هذا والله كتينا إذا كهر هيله وحبرش على مر كامل هذا أنا إذا كأنا أموسا marka ilaahay baa ugu xansoon maray xalada badan ma soo maray dad ma yaad u qalantaa Soomaaliland inaad maxayday xilka doonato iyo inaad xisbiyaduna aniga iyaga ay baahan waan u sheegay talbid aniga iyaga ay baahan way dad baan wataa anigu hadda ma garata baaxad baan wataa dhinaca kale wuxuu ka hadlay qadiyada Soomaaliland iyo halka uu ka taagan yahay iyo Soomaalilandnimadu inta ay xushan tahay كليبان دوني نتسان كسيديس ونكاعد سنة إلهي وكش عليه إلهي وكش على إنه ناكسم بعطيه كم بس الحالي والله واحد تري بي سلان قلي بري يدور رئيس كسر سومال بلغ هدلاي ما كنا قرص الصومالي بكتر بقى دون كلا تصاح من كان ليا أمين أرتسبار يدين كوبا وحيروا صورتان أيها كقيمة بدن مليون $1 حد يقول يا شيء أمان كلا لا تكسور يقول يا شيء الجدودي وحنسلي واحد من Somaliland طريق وانكرت دوت واحد دينين كلا يوسف قراد وانكرت يوم باك قيم قادرين يسوع سومي ريق الدوينه هو وشلون وريق الدوينه أنا ما فهمي صار وان حضلي وحن كو Somaliland Soomaaliya وحن كدقن مركب جبنية وبدوين كقولوا لي لا شبات اللايف بوت سلينا دور الجوس waxaa Soomaaliland markab gubanaya ka goosatay adigoo markab ololay oo hol ayaa laash kaga goostay hadii lagu raa ku noqo ma ku noqon lahay aqliga sidoo ku siinaya marka arintaas say ku siinaysaa la gubadii waa ku la gubo waa nin caruurtiisa kala cararay dabka daala ka kacay oo dabadeed leeyahay caruurta ku celi meesha marka waxaa Soomaaliland waa markab ka ololay weeyaa Soomaaliya